waxaan ku arkay meelo badan oo nabad iyo nolol ay ku qoran tahay dawladda nabad iyo nolol anigu dawlad nabad iyo qaanuunkaana qaanuun waaraya oo dalka Soomaaliya la rabo inuu ka shaqeeyo boqolaalka sano soo socota waa dawladna lama yiraahdo dawladda Soomaaliya aan u aqaana laakiin dawladda nabad iyo nolol wasiirku meesha uu ka keenay ayaa ranaayo dawladdaas dawladda ay tahay anigu ilaa dawladdii hay'adihii baarlamaanka ka tirsannahay magacaasna iskuma naqaano marka hadduu ula jeedo xukuumadda ama halku dhig waqti gaar ah soconaya laakiin dawladda nabad iyo nolol meelay ka jirtaan uu ma aqaan dawladda Soomaaliyana waa ka tirsanahay marka waxaan rabnaa qaanuun waaraya oo ummadda Soomaaliyeed boqolaalka sano soo socota u jiraya in halku dhigyo koox markaas xukunka haysata halku dhigeeda in lagu qoro maahan aniga aragtidayda marka in meelahaasna laga saxanaamisana waa maasantii su'aasha labaad uu xildhibaankuna weydiiyay ku saabsan eriga nabad iyo nolol horta marka hore kuma jiro meel qodob kamida sharciga kuma jiro hal meel kaliya uu kaga xusan yahay buugan oo ah warqadan qornay anigu aan qoray ee golaha wasiirada ugu gudbiyay oo aan leeyahay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu oo gudanaysa waajibaadka qaran ee ay u xil saaran tahay isla markaana fulinaysa siyaasadda dawladda nabad iyo nolol ee ku wajahan kobcinta dhaqaalaha waa warqadan anigu qoray marka halka kaliya kaga xusan tahay sharciga qodobada kama mid aha taasna ereyga nabad iyo nolol waa sharci waayo halkan markii xukuumaddu keentay barnaamijkeeda ayay ku xustay barnaamijka xukuumadda nabad iyo nolol baarlamaankanina waa ansixiyay ereyga kelimada hadda oo fiqi ka dhawaaji dawladda nabad iyo nolol ma waa la qabaa ra'yigaas xukuumadda hadaysa xukuumadda nabad iyo nolol iska dhaxad idinka laakiin dawladda nabad iyo nolol ma dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka taas waa la qabaa fiqi oo ku maasan yahay